marka ugu horeysa aad baan ugu faraxsanahay Puntland stepka ay ka qaaday dastuurka horta marka ugu horeysa aniga Puntland waxaan u arkaa inay tahay xajarka asaasiga ah oo maanta reerka jira magaciisa soo celisay wax kasta maamul ha ahaado madaxweynaha waxaan u sheegaynaa inuu degdeg talaabo u qaado hadduu qaadi waayo isaga ka mas'uula oo waxa custodianka u yahay isaga dambiga marka waxa weeye ninka kanu waa dalfay maxay tahay xukunka iyo nidaamka marka conflict of interest baa meesha ka muuqata oo meel ka dhac lagu sameeynayo gacantii fulinta oo xuquuqdeedu la dhacayo wiilkeena meesha la geeyana waa ka xunnahay sidoo u dhaqmay iyo meesha u maray wiil daran oo magac kale wadaana inuu jiro wiil kale oo magac kale wadaa oo geele la yiraahdana inuu jiro oo Soomaaliya lagu jiidkeeda ka shaqeeya aan hawl kale ku maqnayn marka عمر جيل waxaan ka xumahay Djibouti xorriyad inay hesho annaga sabab u ahayn ciidamadayada Soomaalida afkooda la bari jiray say food u bixin lahaayeen markii food ku dhacay ciidamo annaga leenaha food gareeyay oo food ka bixiyay markii Faransiiska la kicinay daaraha ka dhisan lacagtii lagu maalgeliyay oo Soomaalidu ahayd way Soomaalidu 8 milyan bay hadda ku leedahay lacag kaash oo si aad bari Allah u naxariisto xukuumaddiisu ka tagtay marka waxa weeye dadkii sida ahaa maanta meeshu ka shaqayn lahaa Soomaali inuu walaalayo ayuu ku abuurayaa qabiilkii baabi'iyay waa ka xunnahay arintaas oo geel la wado faal geel la wado waxaan leenahay gurigaaga hagaaji dadka xidhaysana jeelalka ku jirana waa walaalahay ka soo daa fariinta aan diraya waxa weeye baarlamaanka nimanka ku jira oo soo ka tirsan Puntland iyo maxay ahaytoy 61% labadiyo 60 ugu jira deegaanka dadka ka soo galay 60 ugu jiro ama ka yimaadeen Puntland ama meel kale ha ka yimaadeen waajibku waxa weeye inay shirka ka baxaanin oo yimaadaanin meeshay rabaaniin ku shiraanin adduunkana u sheegaanin in sharciga meel laga dhacay haddii kale nimankaas xuquuqdii aanu lahayn bay duutiyeen iyagana waxaan u qaadanaynaa niman u shaqaynaya maxay tahay wiilkan aanu Soomaalida madaxda oo marin habaabay Puntland waxaan ku leenahay Puntland maamulkan hal hagaajiyo meelsan ninkan madaxweynahayna ajenda u gaar ah buu markiiba shaqadiisa ka bilaabay wuxuu ka ambaqaaday 91kii meesha la joogay madaxweynuhu wadanka waa joogay تاري أنتي دجالات سكوي سعودين أنتي نباتات شرتي واجه حرب جو هرجيسو جو لكن بطل المشغول واو يقانا وحى وصمين يواوجه وحد كجرن إنسان دولة ده ومجعابة اسمها حتى هيكل كأمن يصير ورسيو بعد كجرن إنسان وحى وصمين مدحوينه وحشتغل يسكبر هابي ورقبتين تحب كان الحقاد حب كصوماليا اللي سوق اللي يالو غلطة يوري Soomaaliya maanta cadawga ay leedahay xagee jooga anaga walba hubka waxaan u qaadan jiray Itoobiya kula dagaalamay Itoobiya maanta dagaal laga dhaxeeyo waa nin doonaya inuu dagaal kala galo ciidanka qaranka Soomaaliyeed xagee jooga ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo hubka loo raadinayo xagee ku nooli maxamar baa ciidan Soomaaliyeed jooga ciidan qabiil baa jooga xamar 2,000 oo military officers baa laga qaaday xamar oo loo qaaday Turkiga Soomaaliya wakiilkii معيدا قربة وتركي اللي جاي الوطها بري معيدا صوماليات با قولوا اللي من قبل كذا هذي كويكاتو تاكلوا عن لنا هاي نشوي يا مشرو والله والله تاكل لنا هنا كتير ذاتك هامين هي أو كوريونية قبيل بعد دولة نقونية نبى أمر بحين دونه وذكرته صوصارية والريونية وأنا ريوني والله بين دعين ودعدون ولبا فدرال كلا ربو وأن رادينه حدو سدا أن ربنا شقيني أنا أقولان عيد حق نوجو إيمان دكتور خير قال دكتور نمشي نيك كوريونية عيدا بار السنة يا عيدا وعيدك أنا قد قدر ما إنه عيدا كل سنة بركي هشيز من ماهي لكن هذه الرياضة اللي قبل حوايو والله تيتاي تقدر دستورك ودك اللون جاي هل حبوا أو كم إذا هذه اللي قطعوا وأن أنا أقول أنه هشيز كوهين وحش غيني مشرع بل نك ما أنت هلك كتجي أو ديار الرعي وحمر أنت تجي اللي يريد جنرال باط عيدك يا أبو جنرال وياه بل إيش إذا كو إيش هذا عيدك أبو جنرال وياه
cunaqabataynta waa la qaaday hadda yay dhibaato ku haystaa annaga nagu haysta unkana beentii annagu waan u sheegnay annaga niman siyaasiyiin annaga sheegan bay adduunku run moodaya waxay leeyihiin Soomaaliya dawlad baa ka dhaltay maxaa ka dhashay Soomaaliya war dawlad jirtaana ma jirto dawladna waxaani ma aha wax ka jiraana ma jiraan wallaahi buusan madaxweyne idin ahayn billahi laakiin Puntland jiritaankeeda iyo dadka Puntland iyo gobolada hadda aan ka hadlayno degan maslaxadooda dambe iyo jiritaankoodu ma aha wax lagu ciyaar